waxaa soo baxaya suurtagalnimada ah in Mareykanku isticmaalo bamkiisa awoodda badan ee lagu magacaabo GBU-57 Mob si loo burburiyo balayri xarunta dhulka hoostiisa ku yaala ee Iran ee ku taalo xarunta Fordow oo ah xarun qarsoon oo soo saarta uraniumka. xaruntan oo ku hoos duugan buuraleyda Iran oo ay adag tahay in la gaadho amaba la duqeeyo, maadaama markii horeba dowladda Iran ugu tala gashay inay noqoto xarun ka caagan duqeymaha cirka iyo qaraxyada ismiidaaminta. Mareykanku wuxuu beegsan doonaa xarumaha Iran ee ay ugu horeeyaan xarumaha nukliyeerka ee ku yaala dhulka hoostiisa oo ay ka mid ka yihiin Fordow, Natanz ama Arak, sidoo kale xarumaha sirdoonka iyo kuwa kaydka hubka culus iyo weliba goobaha difaaca muhiimka u ah Iran. dowladda Iran waxay weerarkaas Mareykanka u arki doontaa dagaal furan, waxayna isticmaali doontaa hubka nukliyeerka ee qarsoon oo aan weli la ogeyn meesha uu yaalo, sida laga soo xigtay saraakiil sarsare oo Iraaniyiin ah. waxayna Iran weerar culus oo marle arag ah ku qaadi doontaa saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe ku yaala oo ay ka mid ka yihiin kuwa ku yaala Ciraaq, Suuriya, Qatar, Imaaraadka. Iran waxay sidoo kale weerar aan horey loo arag ku qaadi doontaa Israa'iil marka laga tago duqeynta habeenkii ee inta badan Iran ku qaado Israa'iil. haddaba muxuu yahay bamka khatarta ah ee Mareykanku haysto ee xarumaha Iran ciidda ku daraya? GBU-57 waa bam aad u culus oo uu hormariyay Mareykanka, isla markaana loogu talagalay in lagu burburiyo goobaha militari ee sida qotada dheer dhulka hoostiisa loogu aasay, sida xarumaha hubka nukliyeerka ama goobaha sirta ah ee bambooyinka khatarta ah lagu kaydiyo. sanadkii 2004 ayay ahayd markii ugu horeysay ee la bilaabay qorshaha samaynta bamka GBU Mob, kadib markii Mareykanku arkay baahida loo qabo bambooyin awood u leh inay galaan dhismayaasha dhulka hoostiisa iyo difaacyada iyo weliba bakhaarada hubka nukliyeerka lagu kaydiyo. sanadii 2007 ayaa dowladda Mareykanku tijaabadii ugu horeysay ku samaysay bamka GBU lagu magacaabo, halka sanadkii 2012 si rasmi ah loogu daray kaydka ciidamada cirka ee Mareykanka. bambadan waxaa samaysay shirkadda caanka ah ee Boeing ee diyaaradaha xamuulka soo saarta. shirkadda Boeing waxay wada shaqayn buuxda kala dhaxaysaa wasaaradda difaaca Mareykanka, waxaana mashruucan bamkan Mareykanku kala kaashaday cilmi-baadhayaal iyo saynisyahano si loo horumariyo bambadan gaarka ah. haddaba bamkan lagu magacaabo GBU-57A Mob weli laguma tijaabin meel ka baxsan Mareykanka, wuxuuna Mareykanku aaminsan yahay in bamkan yahay midka ugu khatarsan ee Mareykanku haysto, waxaana la og yahay in Mareykanku kayd ahaan u haysto tiro bamkan ka mid ah ilaa 3 xabo oo kaliya oo midiiba qiimaheedu gaarayo $500 milyan. wuxuuna awood u leeyahay bamkan inuu dumiyo oo ciidda ku daro dhismayaasha dhulka u qodan ilaa 60 mitir oo baac iyo xarumaha difaaca ee buuraha nukliyeerka ee dhulka hoostiisa ka dhisan. bambooyinka GBU-57 Mob culayskoodu wuxuu gaadhaa 13,600 kilogaram, waxaana inta badan xambaara mid ka mid ah diyaaradaha ugu awoodda badan ee Mareykanku soo saaro, nooca loo yaqaano B-2 Bomber, oo ah diyaarad aan si fudud raadaarku qaban karin, isla markaana qaadi karta bambooyin culayskoodu gaadhayo 18,000 kilogaram. haddaba waxaa kor u sii kacaya suurtagalnimada in Mareykanku Iran u isticmaalo bambooyin iyadoo la helayo xogo sheegaya in Iran ay u dhowdahay inay samaysato amaba soo saarto hub nukliyeer ah, taasoo Mareykanka ku khasbaysa inuu adeegsado bamka GBU-57 oo lagu beegsanayo xarumaha bacriminta ee dhulka hoostiisa ku yaala Iran, taasoo Mareykanku ku sheegay inay tahay ka hortag intaysan Iran dhamaystirin hub khatar ku ah gobolka. Mareykanku si uu beegsado xarumaha nukliyeerka ee Iran isagoo adeegsanaya bamka khatarta ah ee GBU Mob, waxaa loo baahnaan doonaa diyaarado khaas ah sida diyaaradda B-2 Spirit si ay u xambaaraan bamkan, taasoo ka dhigaysa weerarkii ugu khatarsanaa ee Mareykanku u isticmaalo bambooyinka khatarta ah. dhinaciisana hogaamiyaha talada ugu sarreeya dalkaasi Iran, Ali Khamenei, waxa uu marar badan sheegay in Iran aysan aqbali doonin hanjabaado ama duulaan Mareykanku hogaaminayo. waxayna Iran kaga jawaabi doontaa arrintan inay weerar militari oo toos ah ay ku qaado saldhigyada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe sida Ciraaq, Qatar, Suuriya iyo Imaaraadka. in Iran ay gantaalaha khatarta ah ku weerarto maraakiibta dagaalka Mareykanka ee badweynta siqaya, in dowladda Iran ay dagaalka soo gelinayso kooxaha ay taageerto ee ay ka mid ka yihiin Xisbullah, Xuutiyiinta, Xamaas iyo kooxaha dagaalyahanada Shiicada bariga dhexe ku baahsan. hogaamiyaha Iran wuxuu isticmaali doonaa weedhiisa ugu dambaysa oo noqonaysa xoojinta midnimada gudaha iyo weliba in jihaad la galo, isla markaana la beegsado cid walba oo garab u ah Mareykanka iyo Israa'iil. wuxuuna shacabka u sheegi doonaa Khamenei in la soo weeraray Islaamka, isla markaana la sameeyo iska caabin buuxda. dhanka kale, haddii Israa'iil ay si buuxda u weerarto Iran ama ay si toos ah u taageerto weerarka Mareykanku qaaday, waxaa suurtagal ah in dagaal guud oo gobolka ah uu qarxo,
waxaana halis gelaya maraakiibta ganacsiga ee mushaaxaya badda cas Hormuz iyo gacanka cadmeed. qiimaha saliidda ayaa cirka isku shareeri doonta. sidoo kale dalalka Shiinaha iyo Ruushka ayay u badan tahay inay taageero hub iyo saad ah siiyaan Iiraan, isla markaana ay ka taageeraan dhinacyada sirdoonka iyo fashilinta Maraykanka iyo xulafadiisa. dhinaca kalena qaar ka mid ah dowladaha khaliijka sida Imaaraadka, Baxrayn, Urdun, Masar waxaa laga yaabaa inay si dadban u taageeraan Maraykanka, balse ay ka baqaan in colaaddu ay ku soo fido. dhanka kalena waxaa jira oo soo baxaya saadaalo ku dhisan aragtiyo militari, xog cilmiyeed oo sharaxaysa sida uu ekaan karo qorshaha ama howlgal duqayn ah oo Maraykanku ku fuliyo xarumaha Iiraan, taasoo marka ugu horeysa diyaaradaha bambooyinka xambaara ee B2 Spirit ay weerar ka soo qaadi doonaan saldhigga Maraykanku ku leeyahay dalka Qatar ee lagu magacaabo Al Udeyd. diyaaradahan inta badan waxaa ku rakiban nidaamyo aan raadaalka dalka Iiraan soo qaban karin, waxayna diyaaradahani isticmaali doonaan hawada dalalka khaliijka sida dalka Sacuudi Carabiya, Urdun iyo Imaaraadka Carabta. diyaaradahan B2 waxay ku hubeysan yihiin bambooyinka kala ah GBU-57 Mob oo loo isticmaalo in lagu burburiyo xarumaha dhulka hoos u qodan ilaa xad, iyo weliba bamka kale ee la yidhaahdo GBU-31 Jam oo ah bambooyin GPS lagu hagayo oo loogu talagalay xarumaha aan aad hoos u jirin ee dhexdhexaadka ah. laakiin inta aysan diyaaradahani si buuxda u xaqiijin duqaynta, waxaa macquul ah inay la kulmaan caqabado ay ka midka yihiin in nidaamyada Iiraan haysato ee difaaca ee dhowaan Ruushka hormariyay ee lagu magacaabo S-300 ay ka hor bixiyaan digniino lama filaan ah oo ay Iiraan toos u helayso fariimo khatar ah oo sheegaya weerar ku soo foodlay, inkastoo diyaaradahan uu Maraykanku sheegay inaysan raadaar ku qaban. arrinta kale ee diyaaradaha caqabadaha ku noqon karta ayaa ah inaan xog sugan oo sax aan laga helinba meelaha saxda ah ee hubka nukliyeerka Iiraan u yaallo, maadaama dowladda Iiraan inta badan ay iska yartahay xogaha laga hayo hubkeeda iyo warshadaheeda bacriminta. arrintaas weerarka ahna waxay Iiraan kaga jawaabi doontaa duqaymo lagu qaado saldhigyada Maraykanka ee uu gobolka ku leeyahay. haddaba maxay tahay xogta ku saabsan diyaaradaha khaaska ah ee B2 Spirit oo ka mid ah diyaaradaha ugu qarsoon uguna awoodda badan ee abid la sameeyo, kuwaas oo loogu talagalay inay si qarsoodi ah uga gudbaan nidaamyada difaaca cirka ee cadowga iyagoo fulin kara weeraro nukliyeer ah iyo kuwa caadi ahba. tan iyo markii la howlgeliyey sanadii 1997 B2 Spirit waxay noqotay tiir muhiim u ah awoodda weerar ee Maraykanka. diyaaraddan wuxuu Maraykanku isticmaalay intii lagu guda jiray dagaalkii qaboobaa, iyadoo Maraykanku doonayay diyaarado awood u leh inay si qarsoodi ah u weeraraan gudaha midowgii Soofiyeedka. mashruucaas waxaa la bilaabay qaybtii dambe ee 70meeyadii, waxaana si rasmi ah loo shaaciyay sanadkii 1988. diyaaraddii ugu horreysay waxay duushay sanadii 1989, waxaana lagu daray adeega ciidamada cirka Maraykanka sanadkii 1997. kaliya Maraykanku wuxuu haystaa 21 diyaaradood oo noocan diyaaraddan ah, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah diyaaradaha ugu qaalisan uguna khatarsan ee aan dal kale oo caalamka ah uusan haysan. diyaaraddan waxay leedahay naqshad flying wing la yidhaahdo, taasoo macnaheedu yahay inaysan lahayn dabo ama buuri toosan. qaabka ay u samaysan tahay wuxuu fududeeyaa saxsanaanta socodkeeda iyadoo la yaraynayo saamaynta raadaarka cadowgu ma laha awood uu ku qabto diyaaraddan, taasoo ka dhigaysa mid aan la arki karin xitaa markii ay duulayso meel sare. waxay qaadi kartaa ilaa 40,000 oo roodhol ama 18,000 oo kg oo ah culays hub nukliyeer ama bambooyin khatar ah. noocyada hubka lagu qalabeeyo waxaa ka mid ah GBU-31 Jam oo ah bam khatar ah oo culeyskeedu yahay 925 kilogram. sidoo kale noocyada bambooyinka dhulka hoos u gala ee loo yaqaan GBU-57 Mob oo ah nooca hadda dowladda Maraykanku doonaysa inay u isticmaasho xarumaha Iiraan ee dhulka hoosteeda ku yaala, kuwaasi oo culeyskoodu gaadhayo 13,608 kg ama kilogram. sidoo kale diyaaraddan waxay tuurta u ridan kartaa B-61 iyo B-83 oo ah bambooyin nukliyeer ah. diyaaraddan waxay duuli kartaa masaafo ka badan 11 kilomitir iyadoo aan u baahnayn wax shidaal ah. haddii la soo koobana waxay si toos ah uga duuli kartaa Maraykanka una weerari kartaa meel kasta oo adduunka ka mid ah. sanadkii 1999 gaashaanbuurta NATO waxay diyaaraddan markii ugu horreysay u isticmaaleen duqaymo ay ka geysteen dalka Serbiya xilligii dagaalkii Kosovo. waxay burburisay saldhigyo muhiim ah, xarumo isgaarsiin iyo weliba xarumo sirdoon. in ka badan 20 saacadood ayay hawada ku jirtay iyadoo aysan raadaar ku qaban. kadib weeraradii 9/11 diyaaraddan B2 waxay sanadkii 2001 weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala dalka Afghanistan. waxay si toos ah uga soo duushay gobolka Missouri ilaa ay dalka Afghanistan weerar ku eekaysiisay bartilmaameedyadii Taliban.
diyaaradan waxay sidoo kale qayb ka ahayd dagaalkii Ciraaq waxayna beegsatay xarumaha taliska iyo kaydka hubka ee Saddam Hussein waxayna dalka Ciraaq ku riday cutubyo bambooyin ah oo loo yaqaan smart bomb si looga fogaado khasaaraha shacabka ayaa la yiri sanadii 2011 B2 waxay burburisay raanweeyada garoomada diyaaradaha Qadaafi sanadkii 2017 waxaa loo adeegsaday weerar culus oo lagu qaaday ISIS qiimaha halkii diyaarad oo noocan ahna waxaa la siiyaa $2.1 bilyan waana diyaaradii ugu qaalisaneed ee abid la sameeyo diyaaradan halkii saac ay hawada ku jirto waxaa ku baxaya lacag ka badan $130,000 hadda waa halkii saac